بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحان ربا موقالكي كوبان إن آن معناها آن كويف تيميو رماه لحريرة دين عفنتا دين قاد الشدا أي سوماليا لبدي دولة دي قدام بيسي مع دولة دي هوري دولة دي هاد جرتا أي كوها من أيان إن أي ماركتي أي أسور تقشو ولا لي الواحد جرتو ماركتي rajagelin ay macnaha ay iska kala dambeeyeen dowladdan hadda federaalka ka horeysay oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladdan oo hadda hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud taas ay ku rajagelinayaan ummadda Soomaaliyeed in maaragtay ay wadanku oo deyntina laga cafinayo deynna ay qaadan doonaan ayagoo markaasi rajadooda iyo shacabka ku rajagelintooda ay ahayd laba arrin oo kow in aan maaragtay ka wadan ahaan aan ka madax banaanaan doono gacan horsiga aan maaragtay muddo dheer aan ku soo jirnay oo maaragtay aan noqon doono wadan madax bannaan oo maaragtay dhaqaalihiisa oo kici doono isla markaasna uu maaragtay waxyaabo ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba ay macnaha ayagu dhaqaalaha ku bixi doona ayagu ay maareyn doonaan taasina rajada waxay dadka ugu dhigeen haddii deynta la cafiyo in maaragtay ay Soomaaliya heli doonto lacag tiro badan dhaqaalahana ay ku horumarsan doonto isla markaana dadkeeda maaragtay shaqo la'aanta u badan 74.8 ah in shaqo abuur badan loo subin doono runtii arrintaas marka maxaa ka run ah in aan macnaha isweydiino ma arrintaas xaqiiq miya in maaragtay deyn cafintan oo maaragtay deynta aan ku qaadanay Soomaaliya in aan ka xiroobi doono oo aan ka madax banaanaan doono wadamada hadda shisheeye gacantooda oo maaragtay dhaqaalahan 71% hadda dhaqaalaha wadankeena kaba oo wali ay tahay un kaliya maaragtay arrimaha qarashaadka dowladda ay inta yar oo 5,800 u shaqeysa iyo ciidanka marka arrintaasi marka inay run tahay inay been tahay laba arrin buu maaragtay waxay noo iftiimin karaan inay arrintaasi dhab tahay iyo inaysan ahayn labada arrin haddaan soo qaato kow waxaa ka mid ah waxaa jira wadamo la isku yiraahdo heavily indebted poor countries oo ah wadamo ka kooban 39 wadan 39kaasi wadan 34 ka mid ah Afrika waa annaga ku jirno waa arrimaha liiska dadka oo deyn cafinta Soomaaliya ay ku jirto oo deynta laga cafi doono deyn dambe cusub la sii doono marka wadamadaasi waa wadamo maaragtay aad u deymaysan aadna faqri u ah marka taasi marka in ka 39 ay ka kooban yihiin saddex ka mid mooyee intii kale oo dhan way soo buuxiyeen shuruudihii deyn cusubna waa la siiyay marka deymahaas cusub la siiyay sida ay dowladihii iska dambeeyay hore iyo tan maanta joogto ay leeyihiin dhaqaalaha deyn cafintaas oo deyntan cusub aan ku soo qaadanayno waa ka madax banaanayna wadamada shisheeye iyo dhaqaalahina kor ayuu u kacayaa 30 iyo maaragtay 6 wadan oo lacagta hadda la siiyay oo deynta la siiyay dhaqaalahoodii horkac ma subiyaan ma ka madax banaanaadeen wadamadii shisheeye dadkoodii shaqo abuur u subiyay ma noqdeen runtii taasi runtii waxaan ka arki karnaa in arrintaasi hadda rajagelinta ay labadii dowladood tan hadda joogtay tii hore inay run tahay inay been tahay 36daas wadan ayaan ka arki karnaa runtiina waa wax fudud qof walba bilaadan arki karo insha Allah wadamadaas dhan resultkii ka soo baxay ama maxsuulkii ka soo baxay ama natiijadii ka soo baxday dibkii hore u haystay dib ka badan ayay ku jiraan dhaqaalahoodii shalay intaan deyntan la siinin oo deynta laga cafinin dhaqaalahoodu wuxuu fiicnaa markii hore ayuu fiicnaa shaqada dadka u shaqeeya macnaha shaqo gelintooda ummadoodana maanta iyo shalay intaysan deyntan soo qaadan oo deynta laga cafin shalay ayay ka fiicnaayeen marka 36daas wadan way fududahay qof walba maaragtay hadii uu ku soo biistaadi wuu arki karaa tan labaad aan ku ogaan karno maaragtay rajagelintan ayna geliyeen labadan dowladii hore tan hadda deyn cafinta inaan ku baraari doono waxa kaloo ka eegi karnaa shuruudaha siyaasadda dhaqaale ee wadanka shuruucda loo dejiyay sida la socontaa deyn cafintan iyo deynsiinta dambe ay soo socoto dadkani capitalist la yiraahdaa capitalistaha marka qof wax afiya ma ahan
waxa waaye dantiisa wuu yaqaanaa wadamadan capitalistka shirkadahan ayaa xukuma shirkada ayaa xukuma oo multinational corporation la yiraahdo marka deen cafintan iyo deensiinta Soomaaliya waxa lagu xiray shuruuddu marka lagu xiray waxay tahay in dhaqaalihii siyaasadda dhaqaalaha wadanka in ay ayagu dejiyaan hadalkaas si fiican u fiirso in dhaqaalaha siyaasadda wadanka ayaga inay dejiyaan taasina waaye tan oo macnaha ilaa iyo laga soo bilaabo inta IMF inoo qoonsatay ay dawladda xashi sheekh ee hore ilaa ay hadda laga shaqeynayo waa marka programka siyaasad dejinta ee dhaqaalaha wadanka waxay ugu yeeraan wax la yiraahdo waxay ugu yeeraan structural adjustment policies wax la yiraahdo marka waxay ka kooban yihiin 10 ayaa ugu muhiimsan laakiin insha Allah anigu 10ka dhan caawa ma soo wada qaadan karo laba qodob ayaan rabaa inaan ka soo qaato maxay yihiin labada qodob marka waa siyaasadda dhaqaalaha wadanka maanta oo maaragtay dawladeena ay tii hore tan ay macnaha dhiirgelin ku waday baarlamaanka la geeyay maalin walba shacabka la hortaagan yihiin waaye 10kaasi qodob ayaan macnaha deyn siinta dambe iyo deyn cafinta ay ku xiran yihiin dhaqaalihii siyaasadda dhaqaalaha wadanka oo la dejiyay marka laba qodob ayaan ka soo qaadanaa insha Allah 8 dambana mar kale ayaan soo qaadanaa labada aan soo qaadanaa waxay tahay mid waxay leedahay siyaasadda waa in la dhiirigeliyaa si fiican u dhageysta waa in la dhiirigeliyaa dhoofinta wadanka dalaga ka soo baxa ee beeraha waa in ay badataa in wadanku wax uu dhoofiyo lana dhiirigeliyaa si qaas ay waxay u tilmaamayaan arrimaha beeraha arrimaha badroolka arrimaha dahabka arrimaha mineralka arrimahaas oo dhan ay aad u tilmaamayaan si fiican u dhageysta waxay leeyihiin waa in la dhiirigeliyaa dhoofinta khayraadka wadanka uu leeyahay hadduu beero noqon lahaa iyo hadduu noqon lahaa khayraadka dabiiciga ah taasi markaad eegto maxay tahay sababta loo dhiirigelinayo dhoofinta arrimahan oo ah beeraha iyo arrimaha khayraadka dabiiciga oo mineralka ah sida badroolka iyo dahabka iyo uraniumka iyo wixii wadanka yaalla sababta waxay tahay wadanka deynta aan qaadan doono si aan ku bixino lacag Soomaaliya laguma bixin karo marka waxay ugu yeeraan dhoofinta maaragtay dalaga beeraha iyo mineralka waxay ugu yeeraan wax la yiraahdo cash crop macnaheedu uu yahay lacagtii adkayd lacagta adag oo ay waxyaabahan aan ku dhoofinay waxay ayaga u saamaxaysaa oo lacag waxay noqonaysaa oo adag deentooda ayaan ku gudi karnaa ilaa shilin Soomaali ayagu uma laha value uma laha qiimo ma laha kuma gudi karno deenta waxaan ku soo qaadanay dollar lacagtan waxaan dhoofin doonana waa dollar si aan lacagtooda macnaha u gudno ayay arrimahaasi marka ay uga dan leeyihiin marka adigu marka ka dawlad ahaan ka shacab ahaan baahida dadkaaga ay qabaan oo aad rabto inaad ku qoodiso dhulkii beeraha aad lahayd baahidaadii aad rabtay inaad ku quudiso wixii adiga dalagii adiga u baahneed aad cuni lahayd ma ahan arinta go'aanka waxaad beerayso ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan adigu ma lihid waxa iska leh heshiiskan siyaasadeed ee dhaqaalaha ee ku xiran deyn cafinta iyo deyn qaadashada Soomaaliya oo ay ayagu dejiyeen oo siyaasadda dhaqaalaha wadanka qodobkaas qodobka labaad oo rabo oo ku jiro dejinta siyaasadda dhaqaalaha ay ugu yeeraan structural adjustment policies waxa la yiraahdo FDI macnaheedu uu yahay foreign direct investment oo ah shirkadaha shisheeye in ay si toos ah ay u maalgashtaan Soomaaliya shirkadahaasi marka waxay wataan shuruudo ayay wataan shuruudaha ay wataan waxa kamid ah in loo abuuro wax la yiraahdo SEZ waa macnaheedu waxa waaye special economic zone wax la yiraahdo macnaheedu waxay tahay dhul inaad siiso oo aad u goyso dhulkaasi marka wuxuu noqonayaa dhul ka madax bannaan dalka Soomaaliya ka madax bannaan ayuu noqonayaa dhulkaasi marka maxaa way sidoo ugu madax bannaan yahay marka ugu horeyso adigu
canshuur kuma lihid dhulkaasi macnaha wixii laga dhoofiyo iyo wixii la keeno midba labaad shaqaalaha Soomaalida ee ka shaqeeya haddii ay qortaanba umaba qortaan badankood 99% waxay qortaan shaqaalaha ajnabi ah ayay qortaan haddii shaqaalaha Soomaali ay qortaan sharciga wadanka u yaala oo ah shaqaalaha xeerka shaqaalaha iyo xuquuqdooda cabashadooda iyo mushaarkooda iyo contract lala galayo adiga shaqo kuma lihid ayaga ayaa iska leh saddex arrimaha cashuurta ayaguna cashuur kama qaadi kartid meeshaas waxay ka dhoofinayaan iyo siday u shaqaystaan afar waxaa jirta marka shirkadahan oo multinational corporation ka la yiraahdo new colonialism waxa la dhahay ay wadaan annagu maadaama wadankeena iska daa wadamada kale ay ku subiyaan wadankeena maanta oo xasilood darri ka jirta amni xumo ay ka jirto excuse fiican ayay haystaan waxay keensadaan wax la yiraahdo private armies macnaha ciidan maaragta calo shaqaystayaal ah ciidankaasi ayaa maamulaya meesha securitygeeda Soomaaliya dawladeeda wax ay shaqo ku leedahay ma jirto canshuurteeda shaqo kuma laha wax laga dhoofinayo shaqo kuma laha wixii ay macnaha keensanayaan shaqo kuma laha dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta dhibaatada loogu geysanayo shaqo kuma laha ciidanka meesha jooga securityga hay shaqo kuma laha tusaale cad arintaasi waxa noogu ah meesha la yiraahdo xalana maanta oo wadankeeni laga fuliyo waad ogtiin xalana dhibaatooyin badan ayaa maaragtay cabasho badan ayaa jirto shirkado badan ayaa degan markii ugu dambeysay statistics laga soo biyay shirkadaha maaragtay oo missionarieska oo calo shaqaystayaasha waxay gaarayeen 28 hadda way ka bateen aniga waxaan ka hadlaa 3 years ago 3 sano ka hor ayaan ka hadlayaa marka intaas oo dhan waxay muujinaysaa labada tusaale 10 ayay ka kooban yihiin siyaasadaha loo dejiyo marka wax la yiraahdo siyaasadda dhaqaalaha wadanka laba kamid ayaan soo qaatay insha Allah sideed kalena saasan u qaadanaynaa laba arina marka macnaha aan tusaale uga dhigtay in maaragtay arrimahan oo rajagelinta ay maaragtay labadii dawladii hore dawladda maanta hadaan deynta nalaga cafiyo waxaan noqonaynaa wadan dhaqaale ahaan uga madax banaan shisheeyaha iyo baryad waxaan noqonaynaa wadan isku filan waxaan noqonaynaa dadkiisa oo majority dhalinyaro yihiin shaqo u abuuro marka runtii marka fiirisa labadan tusaale wadamadan aan ku tilmaamay heavily indebted poor countries ka oo ah wadamada aad ku deymisan oo maaragtay aadna faqriga u ah oo 39 ka kubnaa 36 kamid aha deymiya la siiyay deyntina waa laga cafiyay dhaqaale ahaan iyo maaragtay bulsho ahaan wax walba markii intaysan qaadan deynta intaan laga cafinin ayay ka fiicnaan 36 wadan maanta ayay ka liitaa markii deyntii laga cafiyay oo deyntii la siiyay marka tan labaad aan soo qaatay waxay tahay shuruucda siyaasadeed ee maaragtay wadanka maaragtay oo dhaqaalaha oo la dejiyay shuruudo ayaa jirta deyn cafintan iyo deyn siinta ku salaysan tahay macnaha madaxda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed rabitaankooda shuruudaha dhaqaalaha wadanka aad leedahay dadka aad leedahay madaxda Soomaaliyeed ma aysan dejinin watan aan sheegay 10 waaye ugu waaweyn laba kamid ayaan soo qaatay marka labadaas shay hadda aan soo qaatay oo ah mid la yiraahdo dhiirigelinta lagu yiraahdo waxyaabaha dalagga beeraha in la dhoofiyo iyo khayraadka dabiiciga ah oo runtii ah in dhulkeeni noloshayga baahideena aan lagu qiimeeyay baahida sida lacagtooda loo celiyo oo looga helo cash crop wax lagu yiraahdo lacagta adag oo looga helo si aan deynta u gudno ayaga ayaa policygaas dejiyay tan kale oo ah FDI oo macnaheedu tahay foreign direct investment oo ah in shirkadaha shisheeye ay si toos ah u maalgashan karaan wadanka conditionada ay leeyihiin oo ah in maaragtay ay subsadaan wax la yiraahdo special economic zone oo tusaale xalan loogu filantahay laba kala tusaale ayaa jirta DB World ay ka fulisay Berbera iyo Boosaaso waad ogtahay cabashooyinka ka soo yeeray dadka shaqaalaha ay dadka u shaqeyn jiray iyo ciidanka meesha ay geysteen iyo maamulka aysan lahayn dhul Soomaaliyeed shirkadaas waxay rabeen ay ka soo jireen boqolaal jeer ay idaacadaha ka maqasheen marka insha Allah labadaas shay marka waxay noo muujinayaan rajo abuurkan inuu yahay rajo abuur aan xaqiiqada ku salaysnayn insha Allah arintani falfalaarin maaragtay faahfaahin badan ayaan ka gudbinaa waxaan aad uga xumahay in runtii ay maaragtay dooda miiska taal oo deyn cafintii deyn qaadashada Soomaaliya ay noqotay hal dhinac oo kaliya ay ka raran tahay oo dhanka maaragtay wanaagga ayaa la iska tusay waxaan marka dadka Soomaaliya ku dhiirigelinaya in doodan la keeno waxyaabaha ay negative ka leedahay ama ay leedahay wax lagu yeero xumaanta ka iman karto inaan doodeeda la keenin doodaasi in la ballaariyo ayaan jeclahay insha Allah anna waa sii wada doonaya waa anigoo ah Maxamed Xuseen Cabdo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh